kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka fagaare production qodobada caawaanidana haya waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Rooble oo digniin culus u diray mas'uuliyiinta garsoorka dalka xil uu maanta soo xiray shirka sanadlaha ah ee garsoorka shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta u baaqday khilaaf ka dhex qarxay wasiirada dhexdooda James Iswaan oo maanta gaaray magaalada Baydhabo xilli madaxweynaha Koonfur Galbeed uu doorasho qorsheenayo inuu ka bilaabo magaaladaasi gudoomiye gobolka Gedo oo xilka laga qaaday iyo ciidamo badan oo uu la goostay waxa mar kale fashilmay jadwalkii ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka caawa ee Fagaare Production hadaad nagu cusub tahay subscribe saar like saar muuqaalka si dad badan ay u daawadaan sidoo kale share gareeya muuqaalka warkii oo faahfaahsan markale kulanti wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabo wararkeena dib u dhacan la shaacin waxa sababay ayaa maanta ku yimid shirkii la filayay in maanta ay yeeshaan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya sida ay Fagaare u xaqiijiyeen il wareedi lagu kalsoon yahay xubnaha golaha wasiirada ayaa waxa loo diray fariimo gaar ah iyadoo lagu wargeliyay baaqashada shirkan oo ahaa mid la wada sugayay oo aad isha loogu hayay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ayaa maanta qorsho ahaa in lagu ansixiyo ilaa 15 safiir oo ay dawladda federaalka u dirayso qaar ka mid ah dalalka caalamka magacaabista safiirada ayaa waxaa ka timid dood adag iyada oo khamiistii la soo dhaafay kulankii golaha wasiirada Soomaaliya la horgeeyay liiska 12 safiir si loo ansixiyo balse dib ayaa loogu celiyay wasaaradda arrimaha dibadda oo markii hore soo gudbisay liiskaasi sidoo kale wasiirada qaar ayaa dood adag ka keenay ilaa ansixiyo liiska safiiradaasi iyagoo ku dooday in aan la soo waafajin nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 si kastaba magacaabida safiiradan ayaa ku soo aaday xilli dalka uu ku jiro marxalad adag oo kala guur ah oo Soomaaliya ay isku diyaarinayso doorashooyinka 2020 wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo haatan si dhow ula shaqeeya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyay maamulka gobolka Gedo ee garabka dawladda kadib wareegto uu soo saaray maanta oo ay tahay 14 bishan January wareegtadan ayaa waxa lagu sheegay in xilka looga qaaday gudoomiyihii gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macallimow iyada oo xilkaasi loo magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Axmed Buule Gareed Macallimow oo xilkan hayay wixii ka dambeeyay tan iyo markii ciidamada dawladda la geeyay gobolkaasi ayaa waxa lagu eedeeyay xil gudasho la'aan ku aadan shaqadiisa sidoo kale gudoomiyaha cusub ayaa la faray inuu si degdeg ah loo wareego xilka loo magacaabay iyadoo sidoo kale laamaha amniga la amray inay la shaqeeyaan xilka qaadistan ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay ka sii daraysay xiisada gobolka Gedo ee dawladda dhexe iyo Jubbaland waxaana sidoo kale ay arintan saameyn ku yeelatay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacaysa sanadkan wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay James Iswaan iyo wafdigiisa oo ay qayb ka yihiin madax ka socotay hay'adaha kala ah IOM iyo OCHA ayaa kulan albaabada u xiran yihiin waxa ay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wararka ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda adag ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020 sidoo kale labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin gargaarka iyo saameynta ka dhalatay ayaxa safarka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyada oo weli halkiisa yahay muranka doorashada ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo mucaaradka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah maamulada taabacsan dawladda federaalka iyada oo la filayo inay bilowdo doorashada gaar ahaan tan golaha aqalka sare ee Soomaaliya xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid aad u cakiran waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan xilli ay dawladda ku dhawaaqday hirgelinta doorashooyinka dalka kulanka kadib madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo isla markaana ay noqoto doorashada soo socota mid macno u leh bulshada Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta soo saaray digniin culus taasi oo si gaar ah ugu socotay hay'adaha garsoorka dalka ra'iisul wasaare Rooble ayaa uga digay hay'adaha garsoorka inay u cadaalad fali waayaan bulshada Soomaaliyeed xilli muddooyinkii dambe cabasho ballaaran laga muujiyay waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Rooble in uu ka warahayo cabasho badan oo bulshada ka muujiyeen garsoorka dalka taasi oo uu maanta uga digay bahda garsoorka shacabka Soomaaliyeed aad bay uga cawdaan garsoorayaasha waxaan idinkaga digayaa in shacabku uu idinka cawdo waxa aad maanta fashaan ayaad bari helaysaan maanta cadaalad fal si aad bari u heshaan ayuu yiri ra'iisul wasaare Rooble sidoo kale waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta garsoorka ay bari noqon doonaan shacab
loogana baahan yahay inay ka digtoonaadaan waxa ay falayaan inta ay xilka u hayaan bulshada. digniintan ayaa imaanaysa xilli dhowr jeer bulshada qaarkood ay cabasho xoogan ka muujiyeen bahda cadaaladda oo ay sheegeen inaysan maxkamadda dalka ka helin cadaalad. waxaa mar kale dib u dhac ku yimid jadwal doorasho oo ay soo saareen guddiga doorashada dadban ee heer federaalkaasi oo ay ku qeexneyd xilliga loo qorsheeyey inay dhacdo codeynta aqalka sare ee baarlamaanka. guddiga lagu muransan yahay ayaa horey waxa ay u soo saareen jadwal doorasho 23kii bishii Diseembar, waxaana jadwalkaasi uu dhigayay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay soo saaraan 29 Diseembar liiska musharaxiinta aqalka sare, isla markaana 31 Diseembar ilaa 6 January 2021 ay ku dhacdo doorashada aqalka sare. intaasi kadib waxa uu guddiga soo saaray jadwal labaad taariikhda markay ahayd 29 Diseembar, waxaana markaasi uu sabab uga dhigay isbeddelka ku yimid jadwalka cos uga yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor oo ka dalbaday in waqti la siiyo muddo dib loo dhigo. waxa uu guddiga qaatay codsiga isagoona soo saaray jadwal labaad kaasoo xeerinayay in doorashada aqalka sare ay dhacdo 7 ilaa 14 January, iyadoo maanta ay ku eg tahay hayeeshee waxyaabahaasi aan waxba ka qabsoomin. ilaa hadda ma dhaqangelin jadwalka iyo habraacyadii uu guddigan soo saaray, waana jadwalkii labaad oo fashilma sabab la xiriira ismarin waaga ka taagan hirgelinta hanaanka doorashada oo ay isku hayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland iyo mucaaradka. xukuumadda Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in doorashada la gudagalayo kadib shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo 3 dowlad goboleed ee siyaasad ahaan u janjeera dhanka dowladda sida Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. waanageynta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku mahadsantihiin daawashada warkeena ee nabadgelyo.